barnaamijkani uu soo qaban qaabiyey xafiiska madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland isla markaasna halkudhigiisu ahaa barnaamijka nafaqada qaranka waxa uu daba socdaa barnaamijyo taxano ah oo hore loo soo qabtay waxaana ka soo qayb galay dhammaanba zaamilayda uu khuseeyo barnaamijka nafaqada qaranka waxaanu barnaamijkani diiradda lagu saarayay sidii hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah ee la shaqeeyay bulshada rayidka ay kor ugu qaadi lahaayeen barnaamijka nafaqada qaranka waxaanu kulankani socon doonaa muddo 2 cisho barnaamijkani waxa uu wax ku ool u yahay xukuumadda Somaliland iyo dhammaanba waxaanu barnaamij noocan oo kale uu ka socdaa wadamo badan hadafka guud ee barnaamijkani ayaa la dagaalanka nafaqa darrada waxa halkaasi ka hadlay Dr. Sakariya Daahir Cige oo ah xiriiryaha guud ee barnaamijka nafaqada qaranka iyo Khadar Maxamuud Axmed oo ka socday hay'adaha maxalliga ee dalka iyo mas'uuliyiin kale intaas hay-adood amba maxayday institution ku bahoobay waxa la doonay inay hareeraha ka wada joogsadaan si looga muraadhaliyo wuxuu ku tusayaa ahamiyadda uu leeyahay inay inta 10 wasaaradood iyo intaas oo hay-adood oo rayidka jaamacadihii wadanka qoladii maxayday businesska private sector-kii intuba ay ku bahoobeen intaas sidii la isku wahayn lahaa fikradda meesha taala iyo hiigsiga aan hiigsanayno aanu gaari lahayn waa laga maarmaan marka xafiis ahaan aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa diyaar baan u nahay inaanu hore si wada soconno isla fahamka iyo wada shaqayntaana waa maanta ka muuqatay dadkaas oo dhan kala duwan hay'adaha kala duwan isku keenay marka aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa labada cishana wax badan maanta aad waxay barnaamijku khuseyn doonaan hay-adaha maxayday bulshada rayidka ee arrimaha maxayday beeraha gacanta ku haya ama la shaqeeya ama barnaamijyadooda fuliya iyo jaamacadihii iyaguna dhinaca kala shaqeynaya oo ilaa 3-4 jaamacadood inagala joogaan marka aad iyo aad baan idin soo la dhaweynayaa maanta iyo bari insha Allah waxa inoo yaala ajenda badan oo aynu rabnay in isu dugle oo miisaanle insha Allah ugu gudagalno uga doodno u la fagurno iyadoo hawl badan la soo qabtay laakiin hawl badan bayna sugaysaa sidii hoos loogu dhigi lahaa heerka nafaqadarrada baahsan ee ka jira Somaliland insha Allah ta'ala waxaan mar labaad aan bogaadinayaa ka soo qaybgalayaasha sideeda oo kale iyaguna soo xilqaamay ay yimid hadalkayga badan waxaan u dhigan doonaa presentationka insha Allah kagana hadli doonaa contextka jira iyo anagu doorka aanu ku leenahay ka qayb qaadashada kor u qaadista nafaqada wadanka guud ahaanba waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Roble Cabdi Muuse dowladda Somaliland waxa ugu dambeeyay jirtaa waxa weeye daryeelka iyo wanaajinta dadka reer Somaliland markay nafaqeyntii yeelato intaasoo wasaaradood intaasoo hay-adood oo kala duwan intaasoo ganacsi oo la xiriira ayaa loo baahdaa adeegyada noocan oo intooda badan markaa shaqadooda ay u badato isku duwid xiriirin aqoon samayn wixii laga bartay waxa markaa Somaliland runtii sharaf inoo ah in ay Somaliland ka mid noqoto markaa 3 ka dal ee hadda ay Sun Movement ay ka shaqeynayso dhanka marka laga eego waxay ina tusinaysaa inay saynu runtii u kobcaynay ay nala jaan qaadayno maamulada casriga ah ee dunida meel badan laga isticmaalayo nafaqeyntu ha ugu muhiimsanaato food security iyo koowaad ha noqoto dhinaciisa waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Somaliland Cabdirashiid Ibraahim Sheekh Cabdiraxmaan markii dalaga iyo hawlahaas ay yaraadeen waxa dawladdu iyadoo idinka kaashanaysa iyo hay'adaha caalamiga ah oo ka shaqeysay in bulshada intii la gaari karo dhinaca hooyada iyo dhallaanka in la gaaro oo dhinaca nafaqeynta aad loo shaqeeyo sanadkii u dambeeyay COVID-19 baa saameyn badan lagu yeeshay laakiin xogta inta imka la hayo 485 oo qoys ayaa runtii lagu dadaalay in nafaqada wax laga qabto xagga sida ay u heli lahaayeen cuntooyin ay ku noolaadaan marka ma la siiyo qoysaska qaarkood cunto bisil oo ardayda iskuulada lagu siinayo ama la bixiyo food distribution soo la qaybiyo raashin fara badan ama cash transfers la siiyo si qoysasku ay iyagu u go'aansadaan
maalgelinta nololeed ay ku sameynayaan qoysaskooda